السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا كسو دوادا channelkeena Maida Kartoon fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar like noo saar haddaad nala joogtayna aad ayaad u mahadsantahay like-ta ha naga baqiilin commentiga wixii fikirkaaga ah noogu soo qor maanta waxaan idin hayaa sheeko cusub beri baa waxaa jiri jiray nin kabatolaay iyo xaaskiisa waxay ku noolaayeen nolol aad u farxad badan waxayna noloshooda ku maareen jireen kabahaas uu talo laakiinse kabaha lacag fiican oo noloshooda ku filan maysan ka heli jirin markuu kabtalo wuxuu u iibgeyn jiray magaalada lacagta ka soo baxdana wuxuu biil uga dhigi jiray reerkiisa inta kalena wuxuu ku soo gadi jiray qalabka lagu sameeyo kabaha laakiinse ninkii kabatolaha maalin ayuu gurigiisa imaaday asaga oo wax lacaga wadin sababtoo ah leedarkii uu kabaha ka talaayay ama bahash kabaha uu ka sameynayay ayaa ka dhamaatay waxa u soo haray jab yar wuxuuna isdhahay berita ayaa kabaha ku sameynaysaa intaasi subaxii markuu soo kacay ayuu kabatolihii wuxuu go'aansaday inuu soo aado meesha shaqada wuxuuna soo aaday shaqadii wuxuuna bilaabay jabkii yaraa oo leedarka kabaha laga sameynayay inuu jarjaro maanta ayaa iigu dambaysa shaqo aan sameeyo waayo leedarkani inuu ii deeqi waayo ayaan ka baqayaa kaba sameyska hadda kadibna dukaankan waan iska xirayaa waayo wax lacaga ma haya aan ku soo gado leedar subaxii dambe ayuu ninkii iska xiray dukaankii wuxuuna iska aaday xaafadiisa wuxuuna isdhahayay talow maxaan u sheegaa gacalisadeyda marka aan u tago gurigiisii ayuu tegay gacalisadiisa ayuu wuxuu ku dhahay aniga waan wareere wax lacagna ma hayo maantana ma soo shaqaynin shalaytana sidoo kale maxaan sameynaa waxay ku tiri dhib ma lahan waan iska joogeynaa hawalwalin ilaahay ayaa keeni doona wax un ama irid ayuu inoo furi doonaayo ee hawalwalin subaxii dambe wuxuu iska soo aaday dukaankiisii meeshii kabaha uu ku talaayay markuu furay dukaankii uu soo galay ayuu wuxuu arkay laba kabood oo qurux badan ama hal beer oo qurux badan oo kaba ahoo diyaarsan wuuna la yaabay talow yaa kabahan sameeyay aniga leedar yar ayaaba ii yaalay aad bay arrintaasi uga farxisay wuuna ka naxay wuuna ku farxay waa hagaag waa inaan kabahani hadeertan suuqa u iibgeeyaa waayo waa nasiibkeyga wuxuu qaaday kabihii wuxuuna geeyay magaalada si uu u soo iibiyo waa laga iibsaday kadibna wuxuu soo gatay bahashii kabaha uu ku talaayay ama uu ka sameynayay leedarkii wuxuuna soo aaday dukaankiisii wuxuu bilaabay inuu jarjaro uu ka sameeyo kabihii wuxuuna sameeyay kaba aad u qurux badan wuxuuna u qaaday magaalada si uu u soo iibiyo magaaladii ayuu tegay haddana sidoo kale wuxuu soo gatay leedarkii ama bahashii uu kabaha ka sameynayay wuxuuna keenay dukaankiisa wuu jarjaray wuxuuna aaday xaaskiisa farxad xaaskiisii asaga iyagoo wada casheynayo wixii dhacay ayuu uga sheekeeyay aad ayay ugu faraxday waxay dhahday waa nasiibkeena samirkeena ayaana ku helnay arrintaasi ninkii kabatolaha ahaa farxadiisa ayuu iska qaatay maalinba maalinka ka dambeysay wuxuu dukaankiisa uu ka helaa kaba diyaarsan wuu la yaaba arrintaani maxaa maantana 3 joog oo kaba ah oo ii diyaarsan ayaa dukaankeyga yaala talow maxaa dhacay xagee iiga yimaadeen waxaan kabatolihii sidiisa la mid ah ayuu haddana kabihii u qaaday suuqa wuu soo iibiyey wuxuuna ku soo gatay leedarkii sanado ayaa sidaasi ay ahayd dukaankiisa oo maalin walbaba leedarku habeenka uga tago subaxii ugu imaanayay iyagoo kaba ah oo diyaarsan asagana wuu soo iibin jiray wuxuuna soo qaadan jiray leedar kale uu jarjari jiray dukaanka ayuu kaga tegi jiray haddana subaxii markuu waaga baryo uu shaqada soo galo wuxuu heli jiray kaba kale oo diyaarsan oo meesha u saaran asaga muusan ka tegin kaba ee wuxuu ka tegay leedar kaligiis laakiin waa loo sameeyay xalayto laakiin ma garanayo xaqiiqda cidda kabahani sameysa asaga aad ayuu ula yaabay talow yaa waayo qofka mar walba i caawiyo oo arrintaani sameeyo wuu la cararay kabihii haddana sidii si lamid ah wuxuu geeyay magaalada asagoo aad u faraxsan uu soo iibiyey wuxuu ku soo gatay haddana qalabkii kabaha lagu sameynayay ama leedarkii ama waxyaalihii kabaha uu ka sameynayay sidii waxay ahaataba ninkii kabatolaha ahaa lacag fiican ayuu helay
ninkii kabatalaha ahaa kabihiisa oo keliya ayaa magaalada laga xirtaa, waxayna noqdeen kabaha keliya ugu quruxda badan magaalada. dadka waxaa ka dhaadhacsan waxaan talo ama warshad ayaa samaysa, waana lis wareystaa qof walbaba xaggee ka keentay. ninkii kabatalaha aad ayuu u farxay, asagii xaaskiisana waxay go'aansadeen inay dhistaan guri aad u qurux badan maadaama hadda noloshooda ay aad u wanaagsanta. waxayna dhisteen guri qurux badan, guriga ayay iska degeen. sidii ayay nolol farxad leh ugu noolaayeen asaga iyo xaaskiisa. shaqadoodana way u kala socotay oo farxadooda lama soo koobi karin. wixii dhacay oo dhan ayuu xaaskiisa uga sheekay, maalin walba inuu kaba ka helo meesha dukaanka ah, 3 beer 4 beer 5 beer oo diyaarsan, 10 beer 20 beer oo diyaarsan oo kaba ah. aad ayay ugu faraxday. alla ilaahayow, arrintaani waa arrin farxad leh. xaaji lacagtan haddaad ka shaqaysay sidaasi wallaahi waa arrin la yaab leh. waxaan rajaynayaa qofka na caawiya maalin inaan anagana u abaalgudi doono, abaalkiisana aan hadiyad uga dhigi doono, aan guddoonsiino. laakiinse gacalisa sideen ku ogaan karnaa qofkaani ina caawiyo? waayo aniga weligay maba arkinba. waxaan arkaa kabaha oo diyaarsan oo meesha yaala, markaan uga soo taga leedarkii aan jarjarta unbaa kaba laga dhigaa. aniga ayaa fikrad ku haayo, waxaan sameyneynaa habeen ayaa meesha isku qarinaynaa dukaanka agtiisa, waana ogaaneynaa cidda dukaanka soo gasho oo kabaha ku diyaariso. waa hagaag, arrintaasi waa arrin fiican. caawa ayaan baxaynaa, waxaana ku dhuumaneynaa meel dukaanka agtiisa ah. adiga alaabtaada jarjaro, meeshana u saar, waan ogaan doonaa cidda timaado oo samaysa. kadibna sidii ayay yeeleen, waxay isku qariyeen meel dukaanka agtiisa ah, ayaga oo sugaya cidda soo geli doonto meeshan dukaanka agtiisa oo kabaha sameyn doonto. waxay sidii ahaataba meeshii sidii u taagnaayeen ay u fiirinayeen ayaa waxaa soo galay 2 ciyaal oo yaryar oo aad u qurux badan. caruurtaasi oo ahaayeen caruur jin ah, laakiinse isku soo ekaysiiyeen bini aadan. way ciyaareen iyagoo aad u faraxsan. dariishada intay kasoo galeen wayna dhoola cadeynayeen, aad ayay u qoslaayeen. waxay meesha ku ciyaaraanba alaabta ninka meesha uu dhigtay oo kabaha ka sameeyo ayay ku ciyaareen. kadibna waxay bilaabeen inay qaataan alaabta oo bilaabaan kaba sida loo sameeyo. waqti ayay ku qaadatay, kabihii ayay sameeyeen, ay diyaariyeen. kabihii markay diyaariyeen way ciyaareen ayagoo aad u faraxsan oo dabaaldegaya. ayaa waxaa fiirsanaya ninkii iyo xaaskiisii. wayna ogaadeen xaqiiqda dhabta, wayna la yaabeen arrintaani. waxayna sameeyeen kaba aad u qurux badan oo xitaa ninkan kaba tolaha ah uusan sameyn karin. labadooda oo is ag taagan oo qoslayo oo ciyaarayo ayay kadib meeshii dariishada ahaa ayay haddana ka baxeen. ninkii iyo naagtii, ninkii kabatolaha ayaa xaaskiisii arrintaani aad ayay ula yaabeen. talow maxay yihiin caruurtaani, xaggaysa ka imaadeen? waa arrin fiican. waa annagana caruurtaani inaan u diyaarinaa sabarays ama hadiyad aan siinaa, maadaama hadda ay baxeen. way soo noqonayaan, marka dambe ay soo noqdaan ayaa annagana waxaan u diyaarineynaa hadiyad qurux badan, waana guddoonsiineynaa. Christmaska soo socdo ayaan uga dhigaynaa hadiyadaasi lama filaanka ah. sidii ayay ahayd, ayay ku ballameen. waxayna diyaariyeen koofido yaryar oo qurux badan iyo dhar isku joog oo qurux badan ayay u toleen, iyo kaba aad u qurux badan. waxayna ugu diyaariyeen miiska dushiisa ama halkii kabatolaha uu kabaha ku toli jiray. ayagoo aad u faraxsan waxay dhaheen annagana way ka heli doonaan hadiyada aan u diyaarinay, maadaama ayagana ay mar walba sabarays noo diyaariyaan. annagana la yaabkan ayaan ugu farxin doonaa, aana u diyaarin doonaa. halkaas ayay alaabtoodii ugu diyaariyeen. waxaa la gaaray xilligii Christmaska uu soo dhowaa. kadibna waxay go'aansadeen inay qurxiyaan dukaanka oo dhan, ay ku wareejiyaan ubaxyo iyo qurux ay ka dhigaan iyo nalal. waxayna u diyaariyeen hadiyadii ay ugu talagaleen caruurtii jinka uu u soo diray ama caruurtii u sameyn jirtay kabaha. kadibna meel ayay isku qariyeen. caruurtii yareeraa oo jinka ahaa ayaa ayagana soo galay
sidoodii caadada ahayd ayay ciyaareen, way dhaansin gareeyeen. hadiyadii meesha taalayna way arkayaan iyagoo aad iskaga faraxsan oo iska ciyaaraya. ay dhaheen talow waxaan maanta hadiyadda aan meesha ku diyaarsan caawa maxay tahay? nabixi walaal, aan fiirinay hadiyadan quruxda badan iyo dharkan quruxda badan oo meesha yaalo. waxaan noogu talagalaa u maleynayaa ninkii kabatolaha ahaa oo aan caawinay, waayo annaga maalin walba ayaan caawinaa. asagana maanta wuu inoo abaalguday ayaan filayaa. ee kaalay aan fiirina waxaa ku jira. aad ayay u qurux badan yihiin. waaw, aad ayay u qurux badan yihiin. waa sabarays la yaab leh ayuu inoo dhigay ninkan. aan isku fiirina. xero walaal adigana aad isku fiirisida. kadibna dharkii ayay gishteen. labadoodiiba way xirteen. waxay ahaayeen kuwa aad ula eg oo aad u qurux badan. labadoodina aad ayay ugu farxeen dharkaani quruxda badan. fiiri walaal, dharkeyga suu u egyahay. waaw, aad ayaad ugu soo baxday walaal. waa dhar aad u qurux badan. waxaas kasii daranba oo aad ii cajabiyaba kabaha. waa kaba la yaab leh ayuu inoo diyaariyay ninka kabatolaha. asaga ayaaba anaga naga badiyaba. aad ayay u farxeen, wayna ciyaareen iyaga oo aad u faraxsan oo niikinayo oo iska baashaalaya. ayay waqti badan meesha ku qaateen. laakiin dhinaca kale ninkii kabatolaha ahaa iyo xaaskiisa way daawanayeen, wayna arkeen farxadooda iyo sida la yaab kale uu dharkii ugu soo baxay ama uu ula ekaaday. aad ayay ayagana ugu farxeen. waxay dhaheen waa shaqo fiican, tani way inoo sii soconaysaa. kadibna labadii shayaadiin dirishada ayay ka baxeen, labadii caruur oo jinka ahaa. kadibna waxaa meeshii ku yimid ninkii kabatolaha ahaa iyo xaaskiisa. waxayna dhaheen waa arrin fiican, arrintaana way inoo sii socon doontaa. annagana markii kasoo wareegta cabaar sidaas camal ayaan hadiyad ugu diyaarin doonaa. ayagana kabaha maalin walba ha noo talaan, sidaas ayaan gacaliso ku noqon doonaa kuwa taajiriin ah. waxaana ka sameyn doonaa warshado waaweyn kabahaani, waayo iyaga waxaa waaye kuwa ku dhaqsada kabaha oo mar walba tolo. kabatolkooda aad ayuu ugu gacan fududyihiin, maadaama aniga maalinkii dhan hal kab aan tolo. ayaga laakiin habeenkii wax badan ayay tolaan. sidaas ayayna kabatolihii iyo xaaskiisa gurigoodii ugu laabteen. subaxii waaga markuu baryay ninkii kabatolaha ahaa wuxuu soo aaday shaqadiisii sidii caadada u ahayd. wuxuuna soo gatay wixii qalabkii kabaha laga sameynayay. wuxuu markii waagii habeenkii la gaaray ayuu wuxuu soo aaday xaafadiisa. xaaskiisa ayuu u yimaaday. ka waran shaqada xaaji? aad ayay u fiicneed, waana kasoo tegay maanta kabihii oo qabyo ah aniga oo dhammaystirin. berita markaan shaqada ku laabta ayaan dhammaystiri doonaa. laakiin saduqii markuu shaqada ku laabtay ninkii kabatolaha ahaa wax kab ah oo u diyaarsan ma lahan. meeshini waa cidlo oo waxaa u yaala leedarkii uu jarjartay oo keliya. aad ayuu arrintaani uga xanaaqay. wuxuuna dhahay tan kama filanaynin. wuxuuna bilaabay inuu shaqadiisa iska qabsado sida caadiga ahayd. laakiinse wuxuu arkay ninkii kabatolaha ahaa arrin kale uu la yaabay. wuxuu sameeyey si dhaqso ah kaba aad u qurux badan oo xitaa kabihii caruurtii ay sameynayeen aad uga sii qurux badan, mise kuwii asaga uu sameyn jiray ka qurxan. arrintaasina aad ayuu ugu farxay. caruurey, intaas ayay ku dhammaatay sheekadeena. aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina.